kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV iyo war degdega oo ku saabsan jabhadii Somaliland dagaalka kula jirtay dhinaca bari iyo walibana hogaamiyahoodii Korneyl Caare balse intaynan muuqaalkeena u gelin fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalka qalbi Soomaali TV taaba calaamada subscribe-ka kadibna calaamada gambaleelka taabo wararka iyo barnaamijyada xiisaha badan ee aanu soo gudbino ayaad maalin kasta la socon doontaa ku soo dhawaada barnaamijka ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan daawadayaal ugu horeyn Korneyl Siciid Jaamac Caare oo hogaaminaya jabhad dagaal kula jirta Somaliland ayaa heshiis waxay wada galeen Somaliland kadib markii ay soo jeedin uga timaaday xukuumadda Somaliland iyo odayaasha dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo haddaba daawadayaal muddooyinkii u dambeysay erga ka kala socotay xukuumadda Somaliland iyo beesha uu ka soo jeedo Korneyl Caare ayaa waxa ay wadin wada hadallo lagu xalinayo labada dhinac iyaga oo ku guuleystay inay ciidamada Caare ka soo saaraan buurihii ay ku jireen oo ku yaala duleedka magaalada Ceerigaabo sidoo kalena daawadayaal wararka ka soo baxaya qodobadii lagu heshiiyay ayaa waxa ay sheegayeen inay ka mid yihiin in Korneyl Caare uu ogolaaday inuu aado dalka dibadiisa sidoo kalena la siiyo lacag laga soo qaaday xukuumadda Somaliland oo cadadkeedu dhan yahay 300,000 oo dollar dhinaca kalena daawadayaal ciidamada Korneyl Caare ayaa wararku ay sheegayeen in qaarkood dib loogu celiyay ciidamada Somaliland halka kuwa kalena ay wali odayaasha deegaanku ka shaqeynayaan arintooda balse dhinaca kalena daawadayaal jabhadda Korneyl Caare ayaa waxa ay saldhig ku leeyihiin deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka Sanaag iyaga oo dhowr mar weerar ku qaaday xarumo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan Somaliland ugu dambeyntii daawadayaal marar badan ayaa lagu guuldaraystay in heshiis la dhex dhigo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waliba taliyaha jabhadda Dulmadiid Korneyl Caare oo ka dagaalama gobolka Sanaag